cilmi baarayaal u dhashay dalka Canada kana tirsan jaamacadda Alberta ee gobolka Calgary ee dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday inay ka heleen laba macdan oo horey dhulka ana loogu arag muunad ahaan dalka Soomaaliya dhagax gaaraya 70 gram oo laga soo qaaday sida la sheegay cirka soo dhac laga helay dhanka miyiga Soomaaliya. Dadka dhagaxyada qaaliga baadi gooba ayaa September 2019 aqoonsaday dhagax cajiib ah kadibna u daray qayb ka mid ah dhagaxaasi gudaha dalka Kenya si baaritaan loogu sameeyo. hase yeeshee sheekada dhagaxa ee dhifka ah ayaa sii fiday kadib markii saraakiisha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen dhagaxaas. cirka soo dhacyo samada kore maalin kasta ayay meel kaga soo dhacaan dhulka inkastoo waxa tobaneeyo tan ka badan ay dhif iyo naadir ay yihiin badanaana waa dhagax u eg kuwa dhulka ama waxa ay ka kooban yihiin bir iyo birlab soo jeedata sida la sheegay birta ama magnetiga. cirka soo dhacyada weli lama hayo cid dhaqaale ahaan ka faa'iiday waxaasay leeyihiin ahmiyad cilmiyeed oo wax ka sheegi karaya waxa ay meerayaasha iyo xidigahaba ay ka samaysan yihiin. dooxada ceel cali oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo gobolka Hiirana waxa laga helay cirka soo dhacan cajaa'ibka ah. ceelku waxa uu Muqdisho uu kaga beegan yahay dhanka waqooyi masaafo ahaan ilaa 200 kiiloomitir. inkastoo dhagaxa uu soo gaaray cilmi baarayaasha 2 sano ka hor haddana dadka deegaanka ayaa muujinaya in uu ka fac weyn yahay 5 jeel. xoolo dhaqatada dooxada ceel cali ayaana dhagaxaasi sida la sheegay ka samaysan 90% bir iyo birlab waxay u isticmaali jireen inay midiyaha ku afeystaan. dhagaxan culayskiisa waxa lagu qiyaasay 16 tan iyo bar waana midkii sagaalaad oo abid la helo. culimada dunidana waxay rumaysan yihiin in dhagaxan iyo dhagxaanta kaleba ay yihiin waxyaabaha ka badbaaday dhexmarka jawiga dhulka oo in yar uu ka soo gaaray dhanka dhulka. baarista waxa kaloo lagu helay macdan saddexaad oo aan la aqoonin balse sida la sheegay dib loo eegayo in la aqoonsado labada macdan oo hore waxa suurageliyay culmo Faransiiska u dhashay oo 80maadkii farsameeyay maado aanan dabiici ahayn balse u dhow macdanta cusub ama mineral cusub. markasta oo la helo waxyaabo isku dhis kiimikeed ah oo cusub oo hore aanan loo aqoonin cilmi baarayaasha waxa ay daneeyaan anfacooda bulshada ayuu ku yiri war-saxaafadeedkiisa Professor Chris Head oo ka tirsan Department of Earth and Atmospheric Science ahna ilaaliyaha kaydka cirka soo dhacyada jaamacadda Alberta ee dalka Canada. suuragal maahan in la ogaado qiimaha dhagaxa laakiin professorada waxa ay sheegayaan in ku dhow 10 sanadood in la weydiisanayay inuu kala sooco dhagaxyada cirka ka soo dhaca waxaana uu sheegay inay heleen war sheegaya in dalka Shiinaha looga raadinayo dad iibsanaya. dadaalka lagu helay macdanta cusub waxa ka qayb galay jaamacadda Mareykanka ee University of California, Los Angeles iyo California Institute of Technology. cilmi baarayaasha ma aysan sheegin cidda la soo xiriirtay balse jaamacadda dalka Canada oo caan ku ah kala sooca dhagaxyada cirka ka soo dhaca ayaa arrintaani samaysay. natiijooyinka cilmi baarista ee November 22 ilaa 22 sanadkan 2022 ayaa lagu soo bandhigay carwada jawiga ee jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada. inkastoo aan la hubin mustaqbalka haddana macdanta cusub waxay noqotay wax lala yaabo oo u muuqata in dunida ay aad u danaynayso. warbixintaana wargeyska Jamhuuriyadda ayaa qoray. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay. markaan waxaynu eegaynaa caalamka. diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda Israa'iil ayaa duqeymo adag maanta oo axada waxay ka geysteen dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan dhanka galbeed ee magaalada Khan Younis lagu magacaabo iyo deegaan beera ah oo ku yaala dhanka bari ee gobolka Rafah oo ah koonfurta marinka Gaza ee dalkaasi Falastiin. duqeymo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil lama sheegin khasaare rasmi oo ka dhashay laakiin guutada Ciise al-Diin lagu magacaabo ka tirsan ee garabka militariga ee Hamas ayaa sheegay in Israa'iil aysan u ogolaan doonin in gantaaladooda ay cabsi geliyaan ciidamada ee Falastiiniyiinta. waxa kale oo sheegay inaysan fursad u siin doonin gumeystayaasha ama dadka soo duulay sida uu hadalka u dhigay in ay ka hortagaan weerar kasta oo dhanka Falastiiniyiinta ka imaanaya. Israa'iil waxay sheegtay diyaaradooda dagaalka inay bartilmaameedsadeen xarumo ay ku sugnaayeen Hamas sidoo kalena xarumo lagu soo saarayo noocyada kala duwan ee hubka ayaa la sheegay inay burburiyeen sida lagu sheegay warbixintooda. xalay maqribadii sidaani oo kala duqeymo ayaa ka dhacay meel ku dhow dhanka koonfureed ee Israa'iilna waxay sheegtay taasi inay kaga jawaabayeen duqeymaha waa berigii maanta. qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay.